Assalaamu calaykum. Waxaan maanta barnaamijkeena ku falanqayn doonaa xogo iyo macluumaadyo ku saabsan cudurka loo yaqaan baabasiirka. Baabasiirku waa cudur caan ah oo khatartiisu ay yar tahay, laakiin ummadda Soomaaliyeed ay si qaldan u fahansan yihiin. Waxaan si kooban uga hadli doonaa cudurkan si ay u fahanto bulshadu fikirkoodana u saxmo. Haddaba waa maxay baabasiir? Baabasiirku waa xididdo lamaane ah oo ku yaalla marinka saxarada. Markay xididadu noqdaan kuwo la bararsan dhiig, waxaa yimaada baabasiir. Baabasiirku waa dhibaato dad badan laga helo, waxaana ay saameysaa qiyaastii 50% dadka waqti ka mid ah noloshooda. Maxaa sababa haddaba baabasiirka? Baabasiirka waxaa sababa wax kasta oo cadaadis saari kara xididada dhiigga oo dib ugu celiya dabada, sida uurka, saxarada oo adkaata, fadhiga aadka u badan, iyo burooyinka caloosha kasoo baxa qaarkood, iyo cayilka badan. Haddaba maxaa lagu gartaa cudurkan? Cuncun dabada ah, dhiigga aan inta badan xanuunka lahayn saxarada kadib, iyo calaamadaha dhiig la'aanta haddii uu qofku markasta uu saxaroodo dhiig ka yimaado. Sidee looga hortagaa? Cudurkan waxaa looga hortagaa inaad ka fogaatid ama iska daweysid wax waliba ee sababi karo ee aan kor ku soo sheegnay. Sidee loo daweeyaa cudurkan? Daweynta cudurkan waxay ku xiran tahay marxaladda uu gaarsiisan yahay qofku. Inta badan kaliya waxaa la saxaa qaab nololeedka qofka, sida cuntada, shaqada haddii ay tahay shaqo fadhi badan ama culus. Marmar dhifana waa la qalaa, laakiin waxaa muhiim ah 3 shay. Kow, inaad biyo badan cabtid ugu yaraan 2.5 litir maalintii si saxaradaadu u adkaanin. 2, inaad cuntid cuntada qolofta leh sida digirta, masagada iyo galleyda iyo wixii la mid ah. 3, inaad jimicsi sameyso 30 daqiiqo maalintii. Waxaana jira boomatooyin inta badan ka kooban 2 maado, laakiin waa iska kaalmaati, waxaana ka muhiimsan 3 qodob ee aan kor ku soo sheegnay. Haddii uu qofku qaab nololeedkiisa waxba ka bedelin, boomaato kaliya waxba ma tarayso. Dhibaatooyinka dadkeena haysta waxaa ka mid ah: 1, wax kasta oo dabada ku dhaca ama dhiig keena waxay u haystaan baabasiir, laakiin taasi sax maahan, waxaana go'aanka cudurkan gaari kara dhakhtar. 2, intooda badan waxay aaminsan yihiin inay baabasiir qabaan, laakiin ma qabaan oo ma lahan calaamadaha aan kor ku soo sheegnay. 3, inta badan ma cabaan biyo badan, mana cunaan cuntada qolofta leh, ma sameeyaan jimicsi. Intaasi oo iskaashaday waxay sababaan saxarada oo adkaata, waana midda ugu caansan ee sababta cudurkan. 4, saxarada isku celiya marka ay qabato. Haddii uu qofku saxarada isku celiyo, waxaa dib loogu celiyaa biyaha yar ee saxarada jilciya, taasi oo sababayso in saxaradii adkaato. Cudurkan dhibaatadiisa ugu weyn waxaa weeye anemia ama dhiig la'aan, taasoo inta badan la arkay markii qofku waqti dheer kadib dhiig ka yimaado saxarada kadib. Gabagabadii, waxaan bulshadeena ugu baaqayaa inay cuntada iska saxaan oo ay qaataan cuntooyinka qolofta leh sida digirta, biyahana ay badsadaan, fadhiga badan ay iska yareeyaan, jimicsi badan ay sameeyaan. Qormadan waxaa qoray Dr. Maxamed Cabdi Maxamed Guutaale oo ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iiday macluumaadkan. Ku soo biir Xiskaal oo subscribe dheh si aad u hesho macluumaadka aan soo gudbino. Wassalaamu calaykum.